mudaharaadyadani maanta ka qabsoomay degmooyinka gobolka Gado ayaa looga soo horjeeday doonitaanka maamulka Jubbaland uu ku doonayo in gacanta loo geliyo maamulka gobolka Gado oo isagu uu maamulo doorashada maamulka gobolka Gado waxayna sidoo kale bulshada gobolka Gado soo dhaweeyeen go'aankii dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay arintaasi waa kuwan qaar kamid ah mudaharaadayaasha degmada Beled Xaawo arintaasi ka hadlaya waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaan leeyahay go'aan adagoo casiimo wanaagsan aad ka qaadateen Dhuusamareeb ma sha Allah waxaan rabnaa kii ayaga inaad sii tobajibaartaan oo aad gobolkan ma ahee gobolada Soomaaliya oo dhan gacanta dawladda dhexe in lagu soo celiyo aad ka shaqaysaan taasna aad ku tallaabsataan waxaan leeyahay golaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay waa inaad dawladda aad u saxiixidaan sidii ay u shaqayn lahayd sidii ay u kordhin lahayd awoodeeda inaad ka shaqaysaan weeye oo aad adinkuna dhulka la goysaan dabadhilifyada iyo kuwa u shaqeeya shisheeyaha oo hoteelada iyo guryaha maxaan ku raadaayo ku sugan isla markaasna boqoraha haya dawladda adinkuna aad noqotaan kuwa ka sii xoog badan kana sii go'aan wanaagsan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ka sii go'aan badan waxaad ogaataan oo idin sheegaynaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed haddaan nahay waanu idin garab taagannahay ciidan hadday tahay shacab hadday tahay hooyooyin hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin odayaal hadday yihiin saqiir iyo kabiir waa la idin garab taagaya dalka Soomaaliya ayaa la rabaa in horay loo wado ragna waad arkaysaan oo waxay rabaan inay hoos u dhigaan oo ay ka shaqeeyaan gumaysi in lagu celiyo gumaysina waa oraa la diiday ugu weyntahay dadka dhaaya Axmedow Jubbaland maaha cid taageersan ma jirto Jubbaland aan laga taageersaneen ogaadeen aan taageersaneen cid kale iska daayay qofkan haysta waa meeshiisa waxaan leeyahay inaad kor u socotaan waxaan leeyahay inaad gacmaha is qabsataan waxaan idin leeyahay inaad deegaankiina dhisataan dawlad idin dhisaysa ma jirto waa inaad idinka dhisataan shacab ayaga wadankooda dhisto deegaankooda iyaga dhisto reer Madheera adiga isku madbaatiin wada Soomaaliyeed dhibaatada meesha ka jirta ma ahayn dhibaato ay kiin ugu haysay waa dhibaato dhexdeena isku haynaayeen waa in laga waamtooba waa inaad gacmaha is qabsataan qabiil ma jiro waa qabiil iska daysaan waxaan idin sheegay dadka halkaan degan inaad tihiin hal jifo inaad tihiin hal qoys inaad tihiin hal fam inaad hal wada tihiin deegaan ahaan iyo dhalash ahaan iyo diilaan iyo midbaxama inta mar isku dar inaad tihiin inaad ku adkaataan qurbi joogta gobolka Gado waxaan ugu baaqayaa inay ku soo noqdaan deegaankooda inay dhisaan deegaankooda inay dadkooda garab istaagaan dhaqaale iyo dhanka tan ay ku garab istaagaan mudaharaadyadani maanta ka qabsoomay degmooyinka gobolka Gado sida degmada Garbahare ee xarunta gobolka Gado Baardheere Luuq Dolow iyo degmada Beled Xaawo ayaa imaanaya xilli saqdi dhexe xalay uu fashil iyo isfaham waa ku soo dhamaaday shirkii Dhuusamareeb 4 oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ilaamiyay kowdii bishan kaasi oo xalay lagu kala tagay asagoo wax natiijo aysan ka soo bixin madaxdii halkaas isugu tagtayna aysan waxba isku afgaran Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Lafagri warbaahinta Star Beled Xaawo